kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybta 467 ee barnaamijka Tubta Nabaddu idiin soo gudbiyo howlgalka qaramada midoobay ee kaalmeynta kala guurka ah ee Soomaaliya UNTMIS. mahadsanid Faisa, maantana waxaan barnaamijka kaga hadlaynaa sheekooyinka dhiirigelinta leh ee ku saabsan gabdhaha saxafiyiinta ah ee Soomaaliyeed iyo kaalinta muhiimka ah ee ay ka ciyaarayaan qaabaynta saxaafadda Soomaaliya. aad iyo aad Cabdi Casiis, dumarka saxafiyiinta ah ayaa guulo la taaban kara ka xaqiijinaya Soomaaliya iyagoo ka soo waramaya dhacdooyinka muhiimka ah, hogaaminaya xafiisyada wararka isla markaasna qaabeynaya sheekooyinka saxaafadda ee muhiimka ah. waa sida aad sheegtay Faisoy, ururada saxaafadda Soomaaliya oo gacan ka helaya qaramada midoobay ayaa si dhow ula shaqeeya gabdhaha saxafiyiinta ah iyo hogaamiyeyaasha si gacan looga geysto xoojinta xirfadahooda, korna loogu qaado codkooda isla markaana loogu caawiyo inay helaan madax bannaani ballaaran. laakiin taasi oo jirta haddana gabdhuhu waxay wajahayaan dhibaateen ka qaybgelin la'aan iyo fursado xadidan. tani waa xaqiiqo xanuun badan, ha yeeshee dumarka saxafiyiinta ah waxay kaalin muhiima ka ciyaaraan xaqiijinta tabin dheelitiran oo inta badan bidhaamisa mawduucyada aysan saxafiyiinta kale inta badan dareen siinin, sida arrimaha la xiriira tacdiyada jinsiga ku salaysan, caafimaadka iyo daryeelka carruurta. sidoo kale haweenka saxafiyiinta ah waxay bidhaamiyaan nolosha bulshooyinka la kulma tacdiyada ee xuquuqdooda la duudsiiyo, taasoo sawir ballaaran ka bixinaysa baahida iyo himilooyinka bulshada. aad iyo aad Faisa, waxay sidoo kale soo tabiyaan wararka ku saabsan ka qaybgalka siyaasadda ee dhallinyarada iyo haweenka iyo kaalinta ay ku leeyihiin iyo sidoo kale caqabadaha ay wajahayaan. Cabdi Casiis, dadaaladani waxay dib u qaabeynayaan dhaqanka saxaafadda iyagoo gudaha ka imaanaya, waxay kor u qaadayaan dheelitirnaanta jinsiga, xorriyadda hadalka iyo fursadaha hogaaminta dumarka. natiijooyinka ka soo baxay dadaaladaasi waa kuwo cadcad oo muuqda. waxaa jira gabdho fara badan oo saxafiyiin ah, gabdho badan oo kaalin hogaamineed ciyaara, tabin dheelitiran, saxaafad xooggan oo haysata madax bannaani dheeraad ah. codkoodu wuxuu dhiirigelinayaa saxafiyiinta dhallinyarada ah, wuxuuna dib u qeexayaa sheekada qaran ee Soomaaliya. haddaba dhegaystayaal, si aan arrintani wax badan uga ogaano, waxaa maanta barnaamijka marti noogu ah Maxamed Ciise Cismaan, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta, isgaarsiinta, dalxiiska, hidaha iyo dhaqanka ee Puntland, iyo Farxiye Muraad oo ah tifaftiraha Bilan Media. agaasime, haddii aan adiga kugu bilaabo, sidee ayaa gabdhaha saxafiyiinta ah ay uga qayb qaadan karaan nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya? sideese aragtidaada arrintaasi u xoojin kartaa dimuqraadiyadda ilaalinta xuquuqda aadanaha? gabdhaha saxafiyiinta ahi waxa ay ka warqabaan ama ay goobjoog ka yihiin xaaladaha muhiimka ay u baahan in loo qareemo ama la daadajiyo. hadday u baahan tahay dimuqraadiyadda in la daadajiyo iyo hadday u baahan tahay in xuquuq aadan la daadajiyaba, cidda salkana garanaysa, meesha ugu muhiimsanna garanaysa, cidda dhibta ka haysatana garanaysa waa iyaga, cidda bulshada isku xirta waa iyaga. sababtaa darteed baan waxaan aaminsanahay inay haweenka journalistayaasha ahi ay qayb weyn oo lixaad leh ka qaadan karaan horumarinta dimuqraadiyadda iyo xoojinta nabadda iyo xuquuqul insaanka iyo guud ahaan dowlad dhiska iyo nabad dhiska intaba, maadaama ay yihiin dadka dumarku ay yihiin dadka iyo ciyaalku tacadiga ugu badan iyo dhibaatooyinka ugu badan dadka ay soo gaaraan marka xuquuqda aadanaha laga hadlaya. cidda ka warqabta waa iyaga, cidda ogaan kartana waa iyaga, cidda u qareemi kartaana waa iyaga. marka labaadna waxay samayn karaan oo ay sameeyaanba sida joogtada ah barnaamijyada arrimaha bulshada ah ee waxyaabaha hoose lagu soo gudbiyo, hadday ahaan lahayd tacdiyada dumarka gaara, ama ha ahaado kufsi, ama ha ahaado wax guur la xiriira, ama ha ahaado waxa la yidhaahdo gudniinka iyo mushkiladaha la xiriira ha ahaato. nooc walba oo tacadiyada ka dhaca waxaa og gabdhaha. cidda hadda barnaamijyada ugu badan ka samaysa oo baahinta ugu badan ka samaysaana waa gabdhaha. markii u qareemida la yidhahdana dadka ugu maaragtay kartida badan oo dadaalka badan oo waxa ay ka warbixinayaan ama ay u qareemayaan og oo dadka fahamsiin ogna waa iyaga. maxay yihiin barnaamijyada ay hadda waddo wasaaradda warfaafinta Puntland si awood loo siiyo saxafiyiinta dumarka ah ee Puntland? sideese wasaaraddu u qiimeynaysaa saamaynta dadaaladani ay ku leeyihiin dhinaca saxaafadda? annagu inta badan saxafiyiinta waxaan u samaynaa inaanu kor u qaadno awooddooda iyo xirfadahooda. tababaro joogta ah baan u samaynaa. tababaradaas inta badan ama ugu yaraan kala bar ka mid ah waa gabdhaha saxafiyiinta cidda tababarada la siiyaa. marka waxaan xooga saarnaa inaanu aqoontoodana dhisno, wacyigoodana dhisno, kartidooda
wax samayn iyo barnaamij soo saaridna dhisno una qareeno xagga shaqooyinka warbaahinta iyo waxyaabaha la xiriira markay tahayna inaan u qareeno arrimahaasaanu inta badan gabdhaha ka caawinaa dhinaca natiijooyinka iyo gulaha laga gaaray inta badan waxaanu ku qiimeynaa tababarada marka la siiyo warbaahinta gabdhaha iyo guud ahaan qaybaha kaleba waxaanu xoogga saarnaa in ay waxa ay barteen ay marka koowaad u gudbiyaan dadka ay ka tirsan yihiin ama hay-adaha warbaahintu ay ka yimaadaan sidoo kalena inay ka sameeyaan warbixino iyo wacyigelino iyo inay ka sameeyaan maxaa la yidhahdaa inay u bedelaan wax dhab ah meeshii marka hore ay aragti ahaan iyo fikir ahaan loo baray inay si practical u dabaqaan oo ay u gudbaan inay maaragtay si dhaba u sameeyaan afcaashii oo ay barnaamijyo kasoo sameeyaan ay u qariimadii laftooda sameeyaan meelahaasaan inta badan xoog ka saarnaa natiijooyinkoodana inay wixii aanu sinay ay qaateen iyo inay dhaqan galeen halkaasaan ku ogaanaa ugu dambeyn haweenku waxay kusoo kordhin karaan aragtiyo waxtar leh qaababka wararka loo tabiyo iyo doodaha dadweynaha haddaba maxay sameynaysaa wasaaraddu si loo ballaariyo ka qaybgalka haweenka ee doorarka hogaaminta iyo tafaftirka saxaafadda puntland si gaara waxaan u dhiirigelinaa gabdhaha warbaahinta iyagu maamula ama samaysta iyagu leh waxaa jira warbaahin badan oo hadda puntland ka jirta gaar ahaan markaan si gaara puntland uga hadlayahay oo ay ama leeyihiin ama ay maamulaan gabdho warbaahinta kale oo gaarka loo leeyahay inta badan waxay kaga jiraan heerarka hogaanka abay kaga jiraan faftirayaal baa ku jira soo saarayaal baa ku jira marka waxaan aaminsanahay inayba hadda ku jiraan oo aan meel fiican ka marayno oo aan natiijo fiican ka hayno awoodsiinta gabdhaha waana rajaynaynaa in insha allah tacaala doorar badan oo hogaamineed inay qabtaan xagga wasaaraddeena markaan si gaar u fiirino runtii waxay kaga jiraan doorarka hogaaminta iyo go-aan qaadashaday kaga jiraan waxyaha wasaaradda qayba waxaa jira ay hogaamiyaan gabdhuhu hogaamiyaan tusaale ahaan qaybaha ugu muhiimsan wasaaradda waxaa ka mid ah qaybta shaqada iyo shaqaalaha iyo tababarada waxaa hogaamisa gabar qaybta dhaqanka iyo horumarinta dhaqanka iyo goobaha taariikhiga ah iyo arrimaha maaragtay dhaxalka la xiriira ama heritageka waxaa maamusha gabar baa maamusha waan rajaynayna insha allah tacaala qaybo kale waxyo kale inay maamuli doonaan caadiyana qaybaha kale oo wasaaraddana gabdhuhu aad bay ugu badan yihiin haddaysan kalabar ahayn kalabar bay ku dhow yihiin wasaaraddu waxayna ka mid tahay wasaaradaha ugu gabdhaha badan xagga shaqada tababarada aanu siino iyo dadaalada aanu gelino iyo u qareemidda aanu samaynana kulligood waa istiraatiijiyado aanu xoogga ku saarayno in ay gabdhuhu qaataan doorarka hogaaminta maadaama aan ognahay inay yihiin dadka bulshada ugu xog ogaarsan uguna mudan inay maaragtay dadka xogta bulshada ee hoosena soo gudbiyaan iyo dadka baahan ayna u qareemaan ay waxa u qareemayaan ay fahmi karayaan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa maxamed ciise cismaan agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta dalxiiska hiddaha iyo dhaqanka puntland oo marti inoogu ahaa barnaamijka tubta nabadda balse iminkana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan waraysi aan la yeelanay farxiye muraad oo ah tafaftiraha bilan midiya oo ah xarun warbaahineed oo ay maamulaan saxafiyiin gabdha ah waxay ugu horreyn ka jawaabaysaa su-aal ku saabsan horumarka muuqda ee saxaafadda ay ka sameeyeen gabdhaha soomaaliyeed iyo waxa saldhigga u ah horumarkaasi waxaa aaminsanahay inay jiraan qodobo badan oo sabab u ah in hadda uu muuqdo doorka hogaamineed ee gabdhaha soomaaliyeed ee saxaafadda ku jira run ahaantii sidaan ognahay muddo badan oo lasoo dhaafay gabdhaha soomaaliyeed kamayse dhex muuqanin hogaanka sababtay uga dhex muuqaninna waxaa jiray waxyaabo badan oo qasbayay in gabdhaha aysan hogaanka dhex muuqanin number one aniga waxaa aaminsanahay in ay ahayd in gabdhaha soomaaliyeed aysan helin fursad ay ku hogaamiyaan maadaama aan ognahay in gabdhaha markii hore looga badnaa saxaafadda oo si weyn ragga ay ugu badnaayeen hadda waxaa aaminsanahay in gabdho badan ay soo galeen saxaafadda sidoo kaleeta gabdho badan oo waxbartay ay soo galeen saxaafadda taas oo kaliftay in la qarin waayo doorkooda muhiimka ah ee ay ku leeyihiin kadhex muuqashada saxaafadda horumarka ay ka sameynayaan shaqada muhiimka ah ee bulshada ay u hayaan oo mar ku saabsan soo tabinta wararka soo tabinta barnaamijyada taas waxaa mas-uul ka ah in gabdhuhu ay muuqdaan sidoo kale waxaa aaminsanahay in gabdhaha ay adkeysteen geesinimo ay muujiyeen sabarkaasna uu kalifay in maanta meeshay joogaan ay soo gaaraan waxaa aaminsanahay in waqti badan gabdhaha fursaddaas ay weysanaayeen soo fursaddaas maadaama ay u adkeysteen ay u sabreen
waxa ay ka gudbeen caqabadihii tirada badnaa ee hortaagnaa ee markaas ku saabsanaa in lagu cadaadiyo inaysan waxba hogaaminin, in lagu cadaadiyo inay xafiisyada ku ekaadaan, in sidoo kale lagu cadaadiyey in gabdhaha si weyn aysan uga soo dhex muuqanin barnaamijyada waaweynka, wararka waaweyn, wararka ku salaysan siyaasadaha, waraysyada waaweyn all ay qabtaan nimanka. maxay yihiin caqabadaha ay weli wajahaan dumarka ku jira saxaafadda marka ay timaado helitaanka fursadaha loo siman yahay iyo doorka hogaaminta? maxayse yihiin tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si codka gabdhaha saxufiyiinta ah lagu daro qaabeynta mustaqbalka Soomaaliya? Waxaa jira caqabado badan oo weli fursadaha barbar socdo oo gabdhaha dabraayo oo u diidaya inay hogaanka qayb ka noqdaan, u diidaya in horumarka saxaafadda ay sameynayso ay ku tallaabsadaan. Maadaama aan ognahay in inta badan miidiyayaasha Soomaalida ay leeyihiin rag oo inta badan ayaga ay hogaamiyaan, waxaa aaminsanahay inay ficnaan lahayd inay jiraan media company oo gabar ay leedahay laakiin sida hadda ragga ay u leeyihiin. taas haddii ay jiri lahayd gabdhaha waxay heli lahaayeen fursado, waxayna ka tegi lahaayeen caqabadaha tirada badan ee hadda hortaagan. Sidoo kale waxaa isleeyahay waxaa jira cadaadis bulsho oo weli dhanka dhaqanka ah, maadaama inta badan waalidiinteena aysan noo ogoleen inaan saxaafadda galno. gabar kastoo Soomaali ahna saxaafadda ku jirtana inta badan waxaa jira caqabad ay wajahdo oo ku saabsan in bulshada aysan ogolaanin in gabadha ay wariye noqoto, oo marka gabadha ay rabtay inay saxaafadda barato, inay bilaawdo xoogaa ay la kulmayso cadaadis dhanka bulshada ku saabsan oo lagu dhahayo ma iska dhaaftid, ma wax kala baratid. qof kasta oo saxaafadda ku jiro oo gabar ahna caqabadaas way wajahdaa. aniga laftirkeyga kamid ahaa markaa bilaabaya aaday igu adkeed inaa saxaafadda bilaabo. welina waxaa jiro caqabad ku aadan faquuqa dhihi karaa aniga, oo ku aadan in yacni aan la aaminsaneyn in gabadha wariyaha ay media hogaamin karto. taasna waxaa is leeyahay muhiimay tahay in wacyigelin badan laga sameeyo. anaga laftirkeena bilan ahaan door weynaa naga saaran, maxaa yeelay waxaa rabnaa in gabdhaha saxaafadda ku jiro horumar ay sameeyaan. waxyaabaha anaga qabano oo gabdhaha aan ku dhiirigelinin waxaa ka mid ah in aan soo saarno gabdho oo aan tababarno, sidoo kaleetana inaan u qabano tartano ku aadan sheeko soo saarka ama storytellingka si gabdhaha ay horumar uga sameeyaan dhankaas. maxay tahay fariinta aad la wadaagi lahayd gabdhaha Soomaaliyeed ee ku haminaya inay ku biiraan saxaafadda islamarkaana ay iyagoo adeegsanaya sheeko samayn kaalin ka qaataan nabadda, horumarka iyo dowlad wanaagga? saxaafadda waa meel lagu dhisi karo horta aragti, waana meel aad ku horumarin kartaan rajadiina iyo rajada ummadda. waxaana dhihi lahaa ka qayb qaata, soo gala saxaafadda, waxbarta, horumarka sameeya. sidoo kaleetana waxaad isku daydaan inaad sameysaan sheekooyin ka hadlayo jihaynta mustaqbalka, ka hadlayo horumarka wadanka, horumarka gabdhaha ay sameynayaan. mar kastana waxaa xooga saartiin inaad rajo dadka u abuurtaan, waxaa xooga saartiin in horumarka aad soo bandhigtaan. inta badan warbaahinteena waxay xooga saaraan qeybaha dhibaatooyinka iyo in problemka wadanka ka jiro oo keliya lasoo bandhigo, taas oo kalifaysay in dadka xataa rajo la-aan lagu rido. soo gabdhaha waxay noqon karaan kuwii rajo u abuuri lahaa mustaqbalka dadka berito wadankan raba inay joogaan ama inay horumar ka sameeyaan. aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. taasina waxay ahayd Farxiyo Muraad oo ah tafaftiraha Bilan Media oo nagala qayb galaysay barnaamijka Tubta Nabadda. balse iminkana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan gabay ku saabsan kaalinta muhiimka ah ee gabdhaha saxafiyiinta ay kaga jiraan saxaafadda Soomaaliyeed oo inoo marinayo Abwaan Cali Deeqa. gabdhaha wariyayaasha waa howlwadeen qaran, waajib gudashadooduna waddankay u tahay sharaf. gabdhaha wariyayaasha xaq waxay u leeyihiin xilalkooda waaweyn in loogaga warqabo oo waxyeeloo dhan laga jiro. gabdhaha wariyayaasha xaq waxay u leeyihiin xadgudub iyo wariiriyo wanjalaad in laga jiro, wax soo saaristooduna waa lagama maarmaan. gabdhaha wariyayaasha xaq waxay u leeyihiin aqoon iyo waxbarashiyo isweydaarsigoodo waa in tababar waafiya wacyiga loogu koriyaa, waana lagama maarmaan gabdhaha wariyayaasha.
waa hagaag dhegeystayaal gabaygaasi ku saabsanaa kaalinta gabdhaha wariyaasha ay ku leeyihiin saxaafadda Soomaaliya oo inoo marinaya Abwaan Cali Deeq wuxuu ugu dambeeyay barnaamijkeennii Tubta Nabadda oo toddobaadkan halkan idinkala socodsiinayeen Cabdicasiis Maxamed Diiriye iyo anigoo ah Faa'iise Cabdi Warsame fadlan noo soo gudbiya aragtidiina adinkoo noogu soo hagaajin karaa barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeenu yahay Tubta Nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybta qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhegeysaneysaan